السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن بوك عبد الرحمن واني سلام أصحابتي وقاليك هذا قنال كاداك عصبتا صاحب سبسكرايب لايك إشار وحقاقا هذا هوري إلي جوكتنا سدو هذا كعما فران شير إلايك أن إيسارة وحييتا هيدي ركلين وحان كهلا يا موضوع مانتي هيستا مقالة مقدشو يا حصارد إيو قبيل إبلاي الروئين awrta lagu kacsado waxaan leeyahay dadka qabiilka iyo balaayada iyo fidnada abuurayo maanta waa adduunyo birina waa aakhiro ilaahayna waa ku jeedaa waxba kama qarsoono fidnada ummadda la dhex ordaysana oo kugu xisaabinaya malaa'igtiisa maslaxayaasha ayaa ku xisaabin doono haddii ilaahay yiraahdo waxaana kuu sheegayaa dagaal laguma helo siyaasad dhiig walaalka aad daadaysi siyaasad laguma helo waxaa la rabaa in wadanka adiga iska leh hadda maanta dagaal iyo balaayo aad ku kiciso sidee xil uga soo doonanaysaa ummadda Soomaaliyeed dhiigooda xalaashatay dhulkoodii baabi'isay marka waxaan kuu sheegayaa walaalow iska daa dhibkaas iyo qaarkaas ka waantow maanta waa adduunyo biri waa aakhiro waxaan ka hadlayaa kale ra'iisul wasaare Roble xilkii lagu dhiibtay gudo waajibaadka doorashada sidii loogu talagalay Umar adigoo waxba khilaaf iyo muran iyo wado xirtay ciidamo keenay madaxtooyada ciidamo keenay adooba galin in waxaa taa mas'uul ah oo ummadda Soomaaliyeed way ku aamintay xilkan waa lagu dhiibay waa lagu aaminay inaad qiyaano iyo waxa loo joogin iyo calool shaqaystayaal inta la shirtay iyo ala timaado waxaas aqli maahan kawanto malaa'ig baa garbaaga saaran adduunkan hadaa ku noolaato ilaahay hortiisa tagi doonta banka qiyaamo waana lagu xisaabin doonaa waliil amri baa tahay waliil amrigana waa mas'uuliyad weyn waana lagu xisaabtimi doonaa marka walaalow kawanto inta dhiig islaameed u daadin lahayd kursi inta dhiig islaameed siyaasad u gelin lahayd iska daa oo shaqada lagu dhiibto doorashada wad oo barteeda ka sii wad adigoon cidna u ahan oo cid Soomaaliyeedna aan dulmin hawshaada wado madaxweyne Farmaajo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed tahay waxaa lagaaga baahan yahay dulqaad waxaa lagaaga baahan yahay samir waxaa la rabaa dadka waa dadkaagi dhulka waa dhulkaagi inaad si walba oo foodo aysan uga dhicin inaad ka taliso ummadda ma qixi karto waa gaajeysan yihiin waa abaaraysan yihiin dib iyo qaxar kala u sii dheer ma la qixi karo waxaan ka codsanayaa mudane madaxweyne inaad xaaladda dejiso adiga ra'iisul wasaaraha ummaddiina hoos u eega idinkoo raalli ah ilaahayna waan ii jeedaa waan xisaabin doonaa maalinta qiyaamo fidnada adduunka ku sameysaan ilaahay hortiisa la hortagi doontaan marka waxaan leeyahay kawaantooba waxaan la hadlayaa dadka propagandada idaacadaha la taagan waxaan leeyahay beenta waa xaaraanna ma fiicno inaad ummad ilaahay oo Soomaaliyeed intaas kugu dirto aad tiraahdo madaxtooyada la qabsaday madaxtooyada asaas la dhahay reehebela la raadinaya reehebela asaas la dhahay war waxaas ilaahay ka baq beenta waa xaaraan been intaad ummadda u sheegi lahayd adan nasteexaha oo Soomaalinimo iyo muslimnimo u sheeg halkaas aan uga baxayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh